الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أفينكي ويه برها بالشدة بلوين تهبر جدير شير جرائد وكوبان بان قبانيا waxaan rabaa halkaan inaan uga hadlo waraysi uu bixiyay General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ah senator ka tirsan aqalka sare ayaa waxaan arkayaa kooxihii ku kacsanaa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo oo wareejinaya isla markaasna si qaldan u fasiray hadalkii senatorka habar gidir baa wax burburinaysa habar gidir baa dawladda ka soo horjeesatay alxamdulillah ayagoo leh ama kanaha ama ku farxa afka habar gidir kuma hadashin naga ku hadalna habar gidir waxay taageersan tahay dawladnimada waxayna taageersan tahay qarannimada حسن شيخ محمود انت هرتay waqtigiisana habar gidir waxay ogoshahay inay sugto dawladdan taageersanahay dawladdan la shaqeynaa lana shaqeyn doonaa waxaan leenahay senatorka waraysigiisa waa dhageysanayay senatorku fikirkiisu cabiray shakhsi xaq buuna u leeyahay inuu cabiro fikirkiisa waa soo dhaweynaynaa senatorkayagii weeye general weeye waa senatorkayagii Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid aragtidiisu cabiray qofka bilaadanka aragtidiisu xor u yahay laakiin micnaheedu ma ahan in habar gidir ay dawladda weerarayso in habar gidir dawladda ay ka hortimid ma ahan sida ay u bedelayaan kooxaha mucaaradka ah oo kursiga Xasan Sheekh Maxamuud u muuqdana waxaan leenahay been baad sheegaysiin sidaas darteed dadweynaha waxaan rabnaa Soomaaliyeed inta wanaaga jecel inaan u cadayno in habar gidir garab iyo gaashaan ay u tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud na ay taageersan tahay waqtigiisa u dhimanna ay ogoshahay habar gidir in fursad la siiyo habar gidir waxay garab iyo gaashaan u tahay doorashada qof iyo codka ah waxaan taageersanahay dalkan inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda in dadku is doortaan in qof walbaaba codkiisa dhiibto ayaa beelweynta habar gidir ay soo dhaweynaysaa waxay habar gidir taageersan tahay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ma la leexleexanayno mana la gambanayno cod dheer baan waxaan ku leenahay wax xila oo annaga nooga maqan dawladda ma jiraan cadaalad darro gaar ah oo ka tabanaynaana ma jirto Xasan Sheekh Maxamuud waxa u haray 2 sano dhowdhow baa u hartay waqtiga u haray hal siiyo markuu waqtigiisa dhamaado ninkii Soomaaliya han kale ama shacabka Soomaaliyeed kalsooni ka haysta masrax ha yimaadaan leena ninkii kursiga Xasan Sheekh Maxamuud u muuqdana waxaan leena adeer annaga han ugu galgalan habar gidir qaran weeye dad taariikh la weeye dawladnimaday ogoshahay deganaanshahay ogoshahay xasilooniday ogoshahay qarannimada Soomaaliyeed baan difaacaynaa dawladda federaalka ayaana garab istaagaynaa warkaas war cad ma yahay afka habar gidir ee baraha bulshada naga ku hadlayna habar gidir dawladday taageersan tahay garab taagan tahay waqtiga Xasan Sheekh Maxamuud u harayna waa la sugayaa waa la shaqeynayaa beelweynta habar gidir haddaan nahana waxaan soo dhaweynaynaa in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo coda shacabku cid ay rabaan ay doortaan Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisana la shaqeeyo diyaarana u nahay inaan la shaqeyno